cagahaaga ayaa muujinaya macluumaad muhiim ah oo ku saabsan dabeecadahaaga iyo shakhsiyadda qofka aad tahay. dhinaca kale, qaab dhismeedka cagahaaga waxay inta badan saameyn ku yeeshaan dheelitirka jirka iyo habka uu qofku u socdo. cagaha iyo cidiyaha qaabkooda ayaa ka turjumaya dabeecadaha uu qofku leeyahay. tusaale ahaan, dadka cagaha yaryar waxay jecel yihiin nolol wanaagsan oo heer sare ah in ay ku noolaadaan. marka suulasha la eego, waxay ka turjumayaan calaamado cajiib ah. dadka suulasha dhaadheer waa kuwa hami sare leh, halka kuwa suulasha waaweynna ay yihiin kuwa caqli badan. ugu horeen, fadlan saan u kala ogaano in muuqaalada noocan ah aan soo badinayno, fadlan tixgeli inaad like ku muujiso. waadna ku mahadsantihiin sida quruxda badan ee aad inoogu wada like gareysaan muuqaalada aynu soo gelino. Okay, haddaba aan u galno. cagaha waxay u qaybsamaan 4 nooc: A, B, C iyo D. aan ka bilowna A. cagaha isku eg. waxaa isku eg labada far ee suulka ku xiga, waxaana loo yaqaanaa cagaha Roomaanka. dadka noocan ah waa kuwa xooggan oo dabeecad wanaagsan. waxay si aad ah u xiiseeyaan waxbarashada. waa kuwa dhaqan wanaagsan oo degan, waxayna jecel yihiin inay markasta guulaystaan. B. cagaha laba jibaaran. dadka leh cagaha noocan ah ee isku eg dhammaan faraha waa kuwa wax badan raadiya oo qiyaasta ku fiican. wax walbana way baaraan ka hor intaysan go'aan qaadan, iyagoo qiimeeya faa'iidada iyo khasaarada ficil kasta ka dhalan kara. dadka noocan ah qofna uma ogola inuu saameyn ku yeesho, waxayna mar walba ku socdaan fikirkooda, waana kuwa la aamini karo. shaqadooda ma jecla in ay dhexda uga tagaan. C. cagaha u eg Giriiga. waa dadka cagaha farta suulka ku xiga uu u dheer yahay, wuxuuna u eg yahay qaabka sidaxagalka. dadka noocan ah waa kuwa aad u firfircoon oo hal abuur leh. waxay jecel yihiin waxqabadka, waana kuwa xamaasad badan. sidoo kale waa kuwa aad u karti badan, waxayna ku fiican yihiin dhiirigelinta dadka kale. D. cagaha faraha ee u samaysan qaabka janjeera. dadka leh cagaha noocan ah waa kuwa ku qanacsan waxa ay haystaan, waana kuwa niyad wanaagsan oo la isku halayn karo. ugu dambayn, haddii aad ka heshay like saar si aan u soo badino muuqaalada noocan ah. mahadsanid.